الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر. إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي تبارك وتعالى ومنعم isagaa inoo nicmeeyey nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo lamana soo koobi karaayo.
hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan, nicmad yar iyo nicmad weyn. nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaanay ka dhaxaysaa, nicmadda weynina dad gaara ayay khaas u tahay. nicmadda yar muslimkuna uu haysan karaa, kaan muslimka ahayna uu haysan karaa. waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatul iijaad, ilaahay isagaa ina jirsiiyey. maan joogi jirin adduunyadan, ilaahay isagaa ina jirsiiyey. hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura. zaman ayaa waqti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn. mid kastoo halkaa fadhiya haddii da-diisa la weydiiyo uu sheegi 30 jir 40 jir 50 jir haluma jar intaa doontaba sheego. intaa ka hor halkeed joogaysa? lasta bishay, horay waxba umaad ahaanayn, iminkana waxba ma tihid, ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey. iraadadiisa iyo amarka ilahayna waad ku socotaa. ilaahay bayna keenay adduunyadan, uu ina jirsiiyey, wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay. innii jaacilun fi lardi khaliifa. markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey, malaa'igtii buu u bishaareeyuu ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa. khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay? arlada ku awaamirtayda ku fuliya, arlada ku aniga wakiiliga noqda, oo mashacayga iyo waxaan doonaya yeela, oo aniga i garto, aniga i adeeca, oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuuraya baa ilaahay yidhi. malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya? haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne. ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun. waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi. marka bashar buu ilaahay naga dhigay. walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi. bani aadanka waan karaamaynay. waxamalnaahum fi lbari waalbaxri, bariga iyo baddaba waan xambaarsiinay. warasaqnaahum min aldayibaat, arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay. wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila, khalqi fara badan oo sameeyena insaankan aan ka karaameeyay baa ilaahay yidhi. marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan, laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma balka kale aan muslimka ahaynba nicmadda uu la wadaagaa. waa bashar, ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmaddaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan. nicmadda yar waxaa kaloo ka mid a baa la yidhi arsaaqaddu waa nicmad weeyaan. arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye, bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa. cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika. addoonkaygiyo baa ilaahay yidhi adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray, aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo. haddiid faraa'id iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tegtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi. arsaaqadu waa nicmad weeyaan, laakiin waa nicmad caama, dadkao dhan bay ka dhaxaysaa. nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadkuu aada u jeclaa, keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine. nin martiya ayaa u yimiday, markaasuu neef u qalay, cuntadiibuu u dhigay. markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay. khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa. markaa khashabkii baa ka soo dhacay. ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday, wuxuu yidhi soco buu yidhi kuma siinaya cuntadayde, liannaka hayrullahi baad caabuddaa. uu ka socday ninkii, jibriil baa u yimida calayhi salaam. yaa ibraahim, ilaahay uu kusoo salaamaya, wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u eridood cuntada u siin weyday? markaasuu yidhi yaa rabbi, ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib u ahaa. uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi. ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan niyiri buu yidhi. wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay keyrkii buu caabuday hoosta ku haystay. yaa jibriil, ilaahay baa yaa jibriil ku dheh khaliilkayga, ma maalin keliyuu kuu yimidaad cunto siini weydee 70 sanuu sanabkaa uu samaystay caabudaan weliba ku arsaaqaa baa ilaahay yidhi. rasaaq waa ilaahay. arsaaqadu waa nicmad weeyaan,
nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay. bashar caqligu waa nicmad weeyaan, caqliga dadka kaleba way kula wadaagaan. maqalku waa nicmad weeyaan, nicmada maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga. araggu waa nicmad weeyaan, akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca walabsaara walafida lacalakum tashkuruun qaliilan maa tashkuruun. hooyooyinkiin ayuu naga soo saaray uurkooga ilaahay ininkoo waxba garanayn, markaasuu maqal ini yeelay, arag buu ini siiyey, qalbi buu ina siiyey, bashar buu inaga dhigay. nicmadaasina waa nicmad cumuumiya, nicmadaas dadkao dhan bay ka dhaxaysaa. mancim waa ilaahay. wamaa asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah. waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey. koonka ilaahay baa inii sakhiray, cadceedda ilaahay baa soo saaraya, amarka ilaahay baa ku soo baxaysa, amarka ilahay baa ku dhacaysa. dhulka aad ku socotay ilaahay baa kuu ballaadhiyey. waasamaaa banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun fafiruu ila allah. samada ilaahay baa sameeyey oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey, gacantiisa. dhulka ilaahay baa farishay oo ballaadhiyey. shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilahay hi si ad u antowdaan. dharaar iyo habeen, dayax iyo cadcaad, kulayl iyo qabow, abaar iyo barwaaqo, nabadgelyo iyo cabsi, nolol iyo geeri, xanuun iyo caafimaad, lab iyo dhidig, faqiir iyo hani, xanuun iyo caafimaad, faqri iyo hina, cize iyo dilla. shay walba laba ayaan ka dhignay baa ilahay hi sidaad u antowdaan. ee fafiruu ila allah, xagga eebbahayna u yaaca, xagga makhluuqa ha u yaacina. hayrullaahi ka yaaca oo ilaahay xaggiisa u yaaca. man khaafa shay-an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi. ninka shay ka cabsada, shayga uu ka baxsadaa, uu ka ordaa. ninka ilaahay ka cabsadana ilaahay xaggiisa u ordaa. haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan. haddii ilaahay aad ka cabsato xaggeed u baxsan? xaggiisa maad u baxsan. meel kaloo loo baxsanaya ma jirto, meel kaloo la isku dhiibaya ma jirto. xaggiisa isku dhiib. taskhiir ilaahay insaankan isagaa koonka u sakhiray. sakhara lakum maa fi lardi jamiican. barigiibuu kuu sakhiray, buurihiibuu kuu sakhiray, baddiibuu kuu sakhiray, hawadiibuu kuu sakhiray, kaa'inaadkao dhan buu adiga kuu sakhiray, xoolihiibuu kuu sakhiray. wa ina lakum fi lancaami lacibrah nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farthin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin baa ilaahay yidhi. wa ina lakum fi lancaam, nicmowlaydaad haysataana cibra inigu sugan baa ilaahay yidhi. nusqiikum waa niga waraabinaa mima fii butuunihi, shayga caloosheeda ay ku haysato, caanahaasoon kasoo dhex saarna baa ilaahay yidhi. dhiigiyo uusinta udhexaysaan kasoo saarnaa baa la yidhi, caano cad. taskhiir, xoolihii baa lagu sakhiray, cadcadii baa lagu sakhiray, habeenkaa lagu sakhiray, dharaartaa lagu sakhiray, biyahaa lagu sakhiray, hawadaa lagu sakhiray, arsaaqadii baa lagu sakhiray. malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqadaada un, wax kalaba ka shaqaynayn, wax kalaba ka shaqaynayn. afarta malag ee qur-aanku sheegay, jibriil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam iyo mikaa'iil calayhi salaam iyo malakulmowt, afartaasiba bini aadamka unba u khidmaynayaan. labana ruuxday ku shaqo leeyihiin, labana jasadkay ku shaqo leeyihiin. laba jasadkay ku shaqo leeyihiin. jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay. mikaa'iil calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay. israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan inay ruuxdu in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo nooleeya. haddana malakulmowtna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd alarwaax, inuu bini aadamka ruuxda ka qabto. insaanka sida ilahay u karaameeya u fiirso. khalaqanaa, ilaahay isagayna abuuray, isagayna jirsiiyey, isagaa ilaahay inoo nicmeeyey. yaa ayuha alinsaan, waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa, kaama hadhin welibana. inii walinsu waaljinnu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu hayrii arzuqu wayushkaru siwaa'i baa ilahay yidhi. anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilahay yidhi, war weyn baa naga dhex dhacay. akhluqu aniga abuuray baa ilaahay yidhi, wayacbudu hayrii, heyrkayna uu caabudaya. anigaa abuuray, heyrkayna uu caabudaya, heyrkayna uu rajaynaya, heyrkayna uu tala saaranaya, heyrkayna uu isku hadlaynaya, heyrkayna uu ictimaadaya. arzuqu wayushkaru siwaa'i, aniga ayaa arsaaqa baa ilahay yidhi, heyrkayna waa ku mahadinaya.
arsaaqada ayaa bixiya allah baa bixiya khayrii ilaa cibaadii naazil wa sharuhum ilaya saacid baa ilaahay yidhi khayrkayga maalin walba wuu soo degaya addoommahayga sharkoogina anigu isoo fuulayaa baa ilaahay yidhi maalin walba waa taas koonkao dhan lagu sakhiray hawadii biyihii dabayshii cadcaadii dharaartii habeenkii arsaaqadii biyihii waa lagu sakhiray acmaasha bini aadanka ka soo fulaysay ilaahay xaggiisa loo qaadayana waa acmaal ilaahay ka cadhaysiinaysa intaad ilaahay caasinaysa iyo intaad ilaahay adeecaysa iyo maa badan bal aduu is xisaabi khayrii ilaa cibaadii naazil wa sharuhum ilaya saacid khayrkaygii wuu u degayaa maalin walba sharkooguna anuu isoo fuulaa baa ilaahay yidhi tucradu alacmaalu yowma alithnayn waalkhamiis buu nebigu yidhi maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha addoommaha jirkooga ka soo baxda ayaa ilaahay loo bandhigaa buu rasuulku yidhi markay addoommadu ay ilaahay caasiyaan ilaahay jala wacala u cadhoonaya ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilahay yidhi welibana waa isjeclaysiinayaa anigoo u baahnayn oo welibana ka kaaftoon baa ilaahay leeyahay waanu nicmaynaynaa dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay yidhi umana baahnayn haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay ii qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday ii wada caabudaanna waxba ima ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxba igama naaqusayaan yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulkii shay-an baa ilahay yidhi xadiis alqudsi addoommahaygiiyow kiinii hore kiina dambe jin iyo insigiin haddaad noqotaan sida kiinayniigu alla kayaa badan waxba aniga ima ziyaadinaysaan baa ilaahay leeyahay culammada qaar waxay ku fasiraan waa nebi maxamed sal alla alay wasalam sida nebi maxamed ilaahay uu uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilaahay leeyahay waxba aniga ima ziyaadinaysaan low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulkii shay-a haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis siduu amarkayga u diiduu u jabiyey isagoo quwaddayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan ood caasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilaahay yidhi ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilahay yidhi say ii jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftoomo u baahnayn bini aadanka wayatabaqaduuna ilaya bilmacaasi wahum axwaju shayun ilaya macsiyad bay isku kay nacsiinayaan iyakoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmadayda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo yani baahida raxmadayda u qabaan baahida raxmadaydaa ka weyn iyakoo wax walba iga baahi badan ayay haddana macsiyaddii isku kay nacsiinayaan baa ilaahay yidhi man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dembiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqda baa ilaahay yidhi meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo dhowaada ina allaha yabsudu yadahu billayl liyatuuba musii'u nahaar wa yabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u lleyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilahay uga toobad aqbalo man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqaa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena oo iisoo laama iisoo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee kayrkay caabuda ee shahawaadkiisa iyo hawadiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkay tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka la bilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoostaa uu argoosanayaa maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadii addoommahaygiyow min maalinkaan ini abuuray ilaad adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday waa nii aamusnaa maanta waa maalintaydii aamusa waan argoosanayaa baa ilahay odhanaya ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii markaasuu ilaahay odhanayaa mee kuwii arsaaqadayda cunaya heyrkayna caabudayay kuwii doolarka caabudaya doolarka salaadu ku dhaafaysa mee ilaa cibaadadu sanab keliya ma ahine may
haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tahay cabdullahi ma tihid tacisa cabdu dinaari wa dirham buu nebigu yidhi addoonka dinaarka iyo dirhamka caabudayaa khasaaro hoogay buu rasuulku yidhi shahawaadkaaga haddaad caabudo cabdu shahawaad baa tahay ka qabiilkiisa u ficiltamaya islaamnimadii daaqadda ka saaray ee qabiil ku bedishay kaasina waa cabdulqabiila weeyaan man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yidhi ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi ha u ficiltami reetolka waxba kuu tari maayaan ifkanay wax kuu tarayn aakhira waxba kuu tarayaan ifkanay naafici weyda qabyaaladii oo ummadeenni iyo dalkeenni baabiise ma aakhiray wax kuu tari markaas xamiyadda iyo jaahilinimadan iska saarno man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninka camalkiisu dib u dhigu la hadho nasabkiisu hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam nabiga nin baa u yimid oo yidhi ninka xamiyad u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya buu yidhi shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabyaalad u dagaalamaya iyo maa fii sabiili illaahi ah jawaamicu alxikam baa la siiyey rasuulka xikmad buu ku jawaabo wuxuu yidhi ninka u dagaalama iclaa kalimat illaah kaun baa la dartiya buu rasuulku yidhi kuwa kale waa dabayl waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan waxoogu ma jiraan bay ka dhigan tahay marka ilaahay ninka u baahan ayna aladiina cabaduu hayrii ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii buu ilahay odhanaya aawaya kuwii arsaaqadayda cunayay heyrkiina caabudayay ayna hum arsaaqadda ilaahay buu cunaayey nicmadda ilaahay buu dhex dabaalanayey ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayey aaway buu ilahay odhanaya waa nargoosanaya maanta anigune marka qofka hadduu macsiyada ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal ma baxsanayo adduunyada intuu nool yaha waa loo siita dheerayn laakiin ma dheeraanayo arrintiisu looma dheeraanayo laa mucaqiba lixukmih alaysa allahu bicasiizin du intiqaam alaysa allahu biaxkami alxaakimiin alaysa allahu biaclama bima fi suduuri alcaalamiin waa argoosan ilaahay marka cibaadadu maaha sanab keliya loo sujuudo maaha waxa li wixii amarka ilaahay ku garamariyo dhan waad caabuday ka dhigan tahay waxa li wixii ilaahay daacadiisa ku halmaamiya waad caabuday haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabuday afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa ilaah macnaheegu waa maxay luqada carabiga ilaah waxaa la yidhi waa shayga markay dhibaata kugu timaado qulubtaada u ilato xaggiisa hada hu yusama lilaah man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii halkee tegi buu odhanayaa meel kaleo tegaysa ma jirte ilaahay waa muncim isagaa inoo nicmeeyey bashar buu inaga dhigay caqli buu ina siiyey cilmi buu ina siiyey kownkan iyo kaa'inaadku inoo sakhiray hadafku adduunyada inoo keenin ilahay uu noo caddeeyey nicmadda weyn ee gaarka ee dadka gaarka la siiyey waa nicmatu liimaani walislaam iimaanka islaamnimadu waa nicmad weyn nicmadaasaa ilaahay muslimiinta ku deeqay nicmadaha kale ee ka soo hadaloo dhan waa nicmad wakti yar ku xadidan weeyaan laakiin nicmatu liimaani walislaam ma xadidno bal qofka adduunyada intuu nool yahay ilaahay amarkiisa qaata ee noloshiisa diin dhammaystiran laga helo ee diintu kashkiisa iyo laabtiisa ay ka muuqato ee iimaanka islaamnimada noloshiisa laga helo adduunyadana raaxa iyo ciz iyo sharaf aakhirana waxaa u dambaysa noloshii daa'imkii abadiga ahayd adduunyaduna xaqiiqaba mahaba wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquub ya baniya ina allaha istafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun
وصية الأولين والآخرين ومحي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبي إبراهيم عليه السلام يلاشي سوحو كيري وبط كيجيو إلى هاي الدين تاسو إني دورته يينا أجش يجردو نيمن إلا إنكو دين تا يحرقها هيستما هنا هذا نيتي ما دا أجشو إنكو حرقها هيسنا واللي بانتين هذا أجشو نيتي ما دا إنكو حرقها هيسنا خسارة وحاتكون عادين وليان لقسو كمين خسارة دا دويد ولا كما لكن خسارة دا آخر لقى ما كمو dal bay dhibaato ka dhacday waa laga soo baxay dadka badankooda way ka baxeen quruumo kale reer baadiyaha dalkii bas ka qabsaday dadkii wax yaqaaneen mutacallimiintii waa ka soo baxeen meeshana waa kala sigeer cascasiye baawr la iska wada wato laakiin dhibaatada aakhir halkee looga qaxaya ma jirto meel loo soconayo haddii la yidhaha hebel qiyaamaha uu khasaaray خسارة وحو كدعي ولقي كسو كعين قرآن كنا آد بوغا ورمي مالك قيامها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يومئذ يود الذين كفروا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا إلهي بالله فكيف لا تتقون ميانا دعبسنين با إلهي ليه سينا دعبسنين هذا خالقين إنكرتان ونعمد النسياء هذا إنكرتان ودهوديني شهوات كنا أذرعدان ميانا دعبسنين وقيران مالين المها يرمركو بنك قيام الله جوجيو تميس اسلامركي بعدان اسكو بدلي دونان يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ومالين وجيد قارنا يفتيميان با إلهي قارنا وجيدو أي مضوبان أيان يوم يفر المرء من أخيه وما أنت قفك هو يدي ولالكي أبطك حاسكي أي كلا بحسن دونان ما أنت ولا سكو يا عيا دويدا ولا سكو يا عيا حتى الدباتة تمادو دتكو دباتة ما أنت وسك كالميسان يا نوال بكيا الجوجة دتكي سيحبو أدريا لكن قيامة عنا عيد وحضر ميسو هو يدا دي معاني ده كل شيء هدي اللي يرادو ميزان كايا لقوها يا هل حسنا يا كدمن السي هدي حسنا سجنة يقليسا قفك السوح له مال أنت مي إلى نفط إذا جنة كوب سنة عد ما قنبوا ليه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بلك يوم لا يجزي والد عن ولده وما أنت والدك الميس وحوق بكرين عنقنا أبي وحبوق بكرين قرآنكم ما أنت آد بوغا ورمي لكن أيام ما أنت كوان توبايا يا سوره هيبا وركنا أيوب السامي يبا ما أنت يسمي حسن البصري أيا رابعة أيو كويري مات قرستي دا وعيت الإمام حسنو وعيت أفر آيات وقرآنك أفر مسألة ضد قرآنك كتالا أيا والولك أيا راحة دي همي قاعدة بيتري وحاولت القرآن وحاول نوشيغي إن مالك قيامها دتكو أي لباوك لبحا إني دتكو لباوك لقيب سميان قولنا كتابك مدك تيك قادن قولنا بيت هذا كقادن لبدا قولنا كجرا إيه عدين بيتري قرآن وحاول نوشيغي ميزانك إن عماش الله صار أيو قفك خير كيسو عسلادنا الجنة إنو كواري أيو قفك شر كيسو عسلادنا النار إنو كوهين أيو لبدا مدان كجرا إيه كلا عدين بيتري jidka siraadin la marayo quraanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labada qolada kamid ah ay cadeyn bay tiri fariiqun fil janna wa fariiqun fis sa'ir ba la yiri fariiqa ku jira ay cadeyn bay tiri oo raabi'a humum qofka meel uu cadahay meel ka madow dadka zamankan adduunyada la weyn dadkii qalbigooda iftiinku galayna aakhirada la weynaat آخرتي مركي وينيين نلاشي أدوية ودي بيراتي راحتي أدوية وإفك وصباح حيث أدوية عش ما شئت فإنك ميت جبريل باوي مد النبي عليه الصلاة والسلام وكيري انت دون تبنى لو كيد انت ومباتي قرشاك الدرس واعمل ما شئت فإنك مجزي به عمل كاد دونتنا لا يمو ولا قابل مريض دون قيامه سوقو وحبين من شئت فإنك مفارقه عدة دونتنا جعلوا أذيك عدة الجعاشة أين موت كأنك لقين دوني
caalamkana ku noolahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa 60 sano 70 sano caalamul barzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nabi aadan dhintay ilaa joogadeena caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janneeyey alqabru ima rawdatun min riyaadi aljanna wa ima xufratun min xufari innaar buu nabigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa ama godgodadka naarta ka miduu u noqonayaa sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada ilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekeey ma oydide qabriga maxaad la oydaa markaad aragto wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya hadduu qofku halkaa ku nabad galo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaa buu u gudbayaa buu yidhi zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa imaam taabici buu ahaa salaadii subax buu jamcii tujiyey rakacaddii hore markuu suuraddii faatixada u dhameeyey suuratu lmudathir buu ku xijisiiyey markuu marayo faidaa nuqira fi nnaaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinta suurta aan ku dhifanna baa ilahay yidhi waa maalin culus weeyaan maalintaa dadka gaaladaana uma fududo baa ilaahay yidhi aayaddaa markuu marayay ninka imaamka taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday sayidina cumar masaajidkii nebigu soo galay habeen inan yaroo shaab buu arkay oo salaatuleyl tukanaya oo soodka kor u qaadaya markaasuu cumar istaago uu dhegaystay yarkii yaraa markuu faatixadii dhameeyey wuxuu ku xijisiiyey watuur wa kitaabin mastuur fii raqin uu dhegaystay cumar markuu maraya yarkii yaraa ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic halkaa markuu maray cumar uu suuxo uu dhacay gurigiisii baa la geeyey 30 maalmood buu xanuunsanaa xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn sayidina cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo keenay cunto isagoo sooman markaasuu qur-aankiibuu kala furay waa qabla alfutuur weeyaan qur-aankiibuu kala furay markaasuu akhriyey ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa طaacaman daa gusatin wa cadaaban aliima طacaamka ahlu naarka aayaddu ka warramaysaa aayaddaa markuu taabtay sayidina cabdiraxmaan uu ooyey ilaa maalintaa waa furi kari waayey sidiibuu ku seexda habeenkii gaajo nebiga calayhi salaatu wasalaam xalaqaadkiisii ka mida ayuu nebigu sal alla alay slam ku akhriyay aayaddaas waxyigiibaa ku soo degay isla markiiba asxaabtu waxyiga u gudbiyey yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwii ilaahay nebiga rumeeyow duulkii ilaahay nebiga rumeeyow lafihiinni ehelkiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi ee gaajo kala baxsada lama odhan gaajaa laga soo yaacay dhibaato keliya laga soo yaacay 10 dhibaataa maanta faraha lala galoo la laami kari layahay quu anfusakum waahliikum naara mufasiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta ubadkiina iyo ehelkiinana diinta bara baa ilaahay yidhi waxaa yeele diintaa lagaga badbaadayaa naarta aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara markuu nebigu aayaddaa ku akhriyey nin xabashiya nebiga hor fadhiyey majliskiisa lilma ayuu sii daadiyey uu ooyey oohintiisiibuu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam yaa muxamed kan hoostaada ku ooyaya waayo markaasuu yidhi yaa jibriil waa adoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina aayaddaasaan ku akhriyo uu adkaysan kari waayey buu yidhi markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed ilaahay wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii wairtifaacii fowqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa akhartu daxikaha fi ljanna ilaahay baa leh sharaftayda weynidayda carshigayga sare ayaan ku dhaartee addoommahayga ka mida adduunyada dusheeda ma ooyo cabsadayda lama ooyo haddii la helose maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badiyaa baa ilaahay yidhi 60 sano ayuu ku dhammaysanayaa taacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa abaalgudkiisu wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslaya allah inaga dhiga kuwaas fadadkii hore qulubtoodu markuu iftiinku galay nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya markay 4taa nuur qalbigooga uu saameeyey aakhiradii baa u caddaatay qur-aankay fahmeen waxyigiibay fahmeen cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen abubakar baa ku yidhi cumarow
ummu ayman inooge hambuuqanne sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge markaasuu wayse soo raaceen ummu ayman bay u yimaadeen markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda ummu ayman way lilmaysay markaasuu cumar abubakar baa ku yidhi yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebiga baad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed alla agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanayay baa naga go-ay bay tidhi cajiib bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso oo faham gabadha walaasheeda muslimaday zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf ishu arkaysoo dhan beenee waxa samada ka yimidee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyada maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa majnuun adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaana ee qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas in la dabiibuu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin alrisqu biqadri lmuqadar baa la yidhi arsaaqadu waa inta ilaahay kuu qadaran weeyaan wax ziyaada ma helaysid arsaaqadu waa inta ilaahay kuu qadaray caalamkan waa caalam yar marka loo eega caalamka qabriga caalamka qabriguna marka loo eega caalamka qiyaamaha uu yaraanaya caalamka qiyaamaha marka loo eega caalamu ljanna wanaarna caalamkaasna uu yaraanaya isna laakiin maxaa lagu badbaadayaa waxaa lagu badbaadaya halkana laga qaadanaya waladadka umuka ya bna aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxfad linafsika an takuna idaa bakaw fii yowmi mawtika daaxikan masruura ilaahay nin shaacira wuxuu yidhi ina aadanow maalintii adduunyada aad imanaysay waxay hooyadaa ku dhashay adoo ooyaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin cunuga markuu dhalanayo baqaaq uu qaylaya isagu laakiin dadku way faraxsan yihiin faxfad linafsika naftaada intaad nooshahay ilaaliyo amarka ilaahay ku ilaaliyo diinta ilaahay ilaalso oo iimaanka ilaalso oo islaamnimada ilaalso oo amarka ilaahay ha sii dayn si maalintaad dhimanayso aad adduunyada uga tagtaa adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ku ooyaan dadku waa labada nina adduunyada wuxuu ka tagaa isagoo faraxsan ninna waa mustareex ninna waa mustaraax nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday nina dhimashadiisa markuu dhinto dadkiibaa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya baguu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaay baguu dhintay ninna waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamka u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman adduunyadu ma dhammaystirmayso
low kaana liibni aadama waadiya min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan ina aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yidhi ku labaad buu jeclaan buu yidhi haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi ina aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliya ciidda lagu guro unbuu dhargaa buu rasuulku yidhi adduunyada lagama dhargo ma dhargaysid maxaa yeele looguma talagelinba shahawaad waxay bini aadamku u baahan yahay adduunyada laguma dhamaystirin daar baa jirta lagu dhammaystira waxay naftu u baahan tahay hadda subaxdii bal u fiirso magaalada dhowtonka meelahan aad tirahdaan centerfield baan idhaa anaku wasta almadiina waddada hanweyga ee u socota magaalada bartamaheega ayaa subaxdii maaragtaane rashawar oo zaxmada haddaad tiraa dadka halkee tegaysaan waxay ku dhahayaan waan shaqo tegaynaa galabtiina waddada kale ayaa zaxmada oo cidhiidhiya haddaad tiraa halkee tegaysaan wuxuu ku leeyahay waa raaxo tegaya gurigaygii baan tegayaa reerkaygii iyo oradaydii baan u tegayaa meesha shaqaduna waa meel gooniya meesha raaxaduna waa meel gooniya adduunyadani meeshii lagu raaxaysanaya ma aha halkan shaqaa loo yimiday meesha raaxada waa loo noqon doonaa idaa dakhala ahlu ljannati aljanna yunaadii munaadin biana lakum an taxyow falaa tamuutuu abada tasixuu laa tasqamuu abada tancamuu laa tab'asuu abada tashubuu laa tahramuu abada ahlu jannahu buu rasuulku yidhi markay jannada galaan afar shay baa loo bishaaraynaya waxaa la odhanaya ahluljannow maanta laga bilaaba waxaad leedihiin nolol aan dhimasho dambe lahayn shabaabnimo aan gabow dambe lahayn nicmad aan dhibaato dambe lahayn caafimaad aan xanuun dambe lahayn baa la odhanayaa ayna dunya xadiis buu nebigu ka sheekeeyey ibnu mascuud uu wariyey yaa adnaa ahla aljannati manzila jannada dadka galaya ka ugu darajo yar buu nebigu maalin ka sheekeeyey wuxuu yidhi waa nin ka soo baxaya jannada buu nebigu yidhi jannadu ka soo baxaya gurguurad buu kaga soo baxayaa albaabkii jannadu ilaahay buu hor imanayaa ilaahay baa odhanaya cabdi addoonkaygiiow orodoo jannada gal waa taase albaabkii jannadu imanaya indhihiisii baa looga dhigayaa jannadii inay buuxsantay markaasuu noqonayaa yaa rabbi jannadaad gal igu tiri way buuxdaa meelaan ka dega ma haysto markaasuu ilahay odhanayaa ma buuxday orodoo noqo gal haddana uu imanayaa mar labaad mar saddexaad markii afraad baa ilaahay odhanayaa orodoo jannada gal oo teg oo gal jannada adduunyadii iyo 10 baad leedahay keligaasi adduunyadii imisa 10 waa saaxada arlada weeyaan ama waxa jannada yaala adduunyada ma yaalin adduunyada maxaa yaala markaasuu odhanayaa ataskharu bi ilaahu ma igu dheeldheelaysaa aw tadxaku bi mise waad igu qoslaysaa adigaaba boqorkiye maskaxdiisay ka dhaadhacayn arrintaas adduunyadii iyo 10 baa lagu siiyey soco imaam qurtubi kitaabu tadkira wuxuu ku sheegay ninkaasi madaxweyne marka dawlad loo magacaabo kormeer buu sameeyaa dalkoo dhan buu soo maraa gobollada tuulooyinka distrigada meel kastuu soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yidhi halkanuu ka bilaabayaa jannadiisii halkanuu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo meesha uu mar marana mar labaad isha ku qaban maaye safarkaa wuxuu ka qaadanayaa 1000 sannadood imise sano 1000 sannadood fayaati wuxuu imanayaa albaabkii jannadu isa soo taagayaa xawralcayntiisii baa ka hor imanaysa tanduru ilayhi wayanduru ilayha buu ibnu cabbaas way eegi eegmadoo keliya ayaa qaadanaysa buu 40 sannadood imse sanaad dalka joogtaan annadra faqad tucaaniquhu wa yucaaniquhaa uu ku boodayaa way ku soo boodaysaa way isku dhegayaan walmucaanaqatu qadra 40 sana buu cabdullahi ibnu cabbaas mucaanaqada oo keliya waxay saysanayaan 40 sannadood oo kale u soconayaa maqsinkii cuntadu ay taallay buu fadhiisanayaa 700 sano uu cuntada cunayaa bas muddada u yar uu cuntada cuno waa 700 sano ayna dunya maxay tahay adduunyadu xawralcaynta waan ka sheekayn lahayna kolley haweenkuna waa nala fadhiyaan bayaanka waa nala dhegaysanaya muxaadarada xaqoogana waan sheegaynaa cajiib nicmadaasaa ilaahay dadka mu'miniinta u diyaariyey yatuufu calayhi 10,000 khaadim buu nebigu yidhi ninka
jannada galaya dadka jannada gala ugu jaga yar ugu faqiirsan ee ugu faqiir lama dhihi kare ugu jaga yar waxa dushiisa dawaafaya buu nabigu yiri 10,000 oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimka kala arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sida ku kala masjido guryaha jannada buu nabigu yiri sida guryahan adduunyada ma ahine sidaasay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yiri asxaabtu way yaabeen yaa rasuulaha guryaha sidaan u galaynaa wuxuu yiri sida shimbiraad u duulaysan aad u galaysaan buu yiri cuntada cunaysaan biyaha cabaysaan sindhay iyo kaadimina noqon maayaan cuntadu waxa isku bedelaysaa daacadaas oo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhididkaas oo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma haraadayaan ma bukoonayaan calal xuma ma jirto oo qabyaalad ma jirto qabyaalad halka ma socon ma jirayso ونزعنا ما في صدورهم من غل الباب الجنة مركي جوغان لما الشيبة ولا قد ظهيريا هدي جيركوغين الجنة انتي قلين بالبدليا لابتو ذا وحي كجري غل اي حسد يدبعات دي حنيد يبغضي يا وحينا الكاس على قربيا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وحكى مغلي مايان سلاما بي مغليان والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم نزلا من غفور سلام قولا من رب الرحيم نحن دنا والسلام ملائكتنا والسلام حق السلام كنا سلام با كيمنيسا سلامتك كيمنيسا سلامتا waxay ka timid la oranaya من الحي الذي لا يموت الى العبد الذي لا يموت diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifaadka ilaahay kamida al-abad sifat al-abad yeelanaya qofka bini aadanku markuu jannada galo من الحي الذي لا يموت waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddii toolay nicmadaas ilaahay noo diyaariyay nicmadaa waxaan ku helaynaa waan haysanaa iimaankaan ku helaynaa islaamnimadaan ku helaynaa haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nabiga ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat aljanna raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar naagta gabadha dhimata buu nabigu yidhi haweenayda dhimata iyadu ninkeygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi rasuulku xadiis waxa uu ku yidhi dadka salaada tukada albaabay jannada ku leeyihiin leeyda baabu salaa dadka soonka laazima albaabay ku leeyihiin baabu rayaan leeyda dadka sadaqada bixiya albaabay ku leeyihiin baabu sadaqa leeyda dadka jihaadka u dadaala albaabay ku leeyihiin baabu jihaad leeyda abu bakar baa yidhi biabi anta wa ummi ya rasuul allah hooyaday aabay baan kugu fideeno kugu furanaye sideeda albaabay jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhay ma jira buu yidhi markaasuu nabigu yidhi nacam wa arju an takuna minhum haa way jiraan rag sideeda albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajay buu rasuulku yidhi abubakar keliya ka gali maayo sideeda albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nabigu yidhi 5 waqtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigeegana xumaanta ka dhowrsato ninkeegana ay adeecdo sideeda albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi sideeda albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga hela 4 camal bisha rabadaan oo soonto 5 waqti oo ilaaliso xumaantoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega ay adeecdo 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi sideeda albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanay la geli doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nabiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka ayaa xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caaisha weydiisay wuxuu nabigu yidhi gabadha muuminada ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tiri maxaan kaga fadli badanay waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye wuxuu nabigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan fadligiina
iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayni dhigtay nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba wuxuu nebigu yihi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa haddana aabbahaa buu rasuulku yidhi dhegayso gabadhayda muslimaday diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday kor sayidina cabdullaahi binu cumar buu nin u yimiday lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi binu cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yaa ibnu cumar hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeygii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudda iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysa inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaqiina waad leedihiin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay mu'minad baad tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday waddadoodii maryan binta cimraan ku dayo aasiya bintu masaaxim ku dayo faaduma binta muxamed ku dayo khadiija bintu khuwaylad ku dayo dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay 4 buu ka doortay buu nebigu yidhi 4taasina waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka baydka guriga ninka rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayni dhigtay raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacday nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaan la yidhi waxay tidhi gabadh xigmad lahaydoo 4taaba annaka unbaa dhallabay tidhi subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo boqoradana annaka unbaa dhalla imaamyadana annaka unbaa dhalla nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi saacadaan gaadhay malaha allah ina fahamsiiyo khayrulkalaami maa qalla wadalla ilaahay diintaa buuna siiyey islaamnimada diintaa inaan adkaysanno oo nicmaddaa u aragno nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonayaa walaalayaal oo dalkanaan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin ittaqi llaha xayumaa kunta buu nebigu yidhi meeshaad doontaba joogoo ilaahay ka yaab badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nebigeennu istaagay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ina siiyey dadaal hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan iyakuna ay badbaadayaan usradooda iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan mu'minka dhabta ma badilmay waxbuu badilaa lama saameeye waxbuu saameeyaa dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dowlatul amawiya ardul islaam bay ka tegeen indonesia malaysia u tegeen tijaara iyo business calaa manhaj alislaam bay ku tijaaraysanayeen akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina masar buu u diray 8 kun baa dalkii oo dhan badishay mu'minku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimati illaah ixyaa addiin fi lcaalam nashr nicma mu'minku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado caalamka gaadhsiiyo inuu nicmadan ummadda ugu yeedho inuu diintan caalamka uu meel walba u maro hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto uu u safro uu dhaqaalo u bixiyo u dhaxo u dhoofo ma badilmaya isagaa wax badilaya lama saamaynaya isagaa wax saamaynaya ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay ee xifaadadeennu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna rag iyo dumar ummaddan wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam manhajka uu kaga tegay waa maxay 3 shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa 3daa zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camal falayeen daaciyan ilaa diinihim
diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmi walcamal waddacwa saddexdaas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma tegin nebigu ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamkee wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay cuqba binu naafic madiinu ka dhaqaaqay masar buu yimiday libiya ayuu yimiday muxiit alatlas maqrib intuu istaagay zamankan dalka waaga zamanka dalkanaa joogno lama aqoonin faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low calimtu waraa hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha ila allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi alaan arjac ila almadiina haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina maxaanu noqonayaa lianna alarda intahat lianna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi haddeetoole uu celiyey faraskii jazaa'ir buu markaa ku dhintay halkaasaa lagu aasay madiinuu ku barbaaray cukaasha radia allahu canhu reer madiina ayuu haa waxau ku aasan yahay suudaan aba ayub alansaari reer madiina ayuu haa istanbul buu ku aasan yahay abi waqaas reer madiina ayuu haa siin buu ku aasan yahay cabdiraxmaan alkhafiqi reer dimashq buu haa faranse buu ku aasan yahay bilaal reer makuu haa wuxuu ku aasan yahay dimashq kam min asaxaaba caalamka ku aasan kam muslimiina dalkan maanta ku aasan laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhoweyn weeyaan saamaxa hoosta waxba aygu qabanina hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u soconno iskuma dhowo walaalayaal lidaalika waa inaan niyaddeena bedelnaa dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa waa ilaa haddii kale khatar baa ku jirnaa niyaddeeni waan bedelaynaa maxaanu bedelaynaa inaan dalkan joogno laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno oon ka bilowna shaqada diinta muslimiintii hor dalkan timid eme aawe dadkii yimide dalkan ayna hum maanta inta soo galaysa maskiidkaa ku farxin ziyaaraadka bax jawladda bax raac jamaacadada dibadda u bax waad yaabi doontaa tastaqrib ayaa u soo baxaya innaka halkii nabiga taagana calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yuri falaysa minhum ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwalin ka murugoon naga mid maha buuhi annaka ama muslimiintaba ka mid maaha dhibaatada ugu weyn ee islaamka haysata waa maxay bucdu can iddiin dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilaahay oo laga fogaaday dhibaatadee ka weyn allah ina fahamsiiyo dee niyadda ma bedelaa dhahada dee bal wixiila niyaddii waan bedelow gacanta taag mustaacidiin dhahada oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahe bixitaanka on maad ka reebtaanaa buu yidhi kollay meel hoo u baahan hadal wax ma ka taraa yaa saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nnasabi inii ra'aytu rukuuda almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi alusud lawlaa firaaqu lardi ma ftarasat wasahmu lawla lqawsi lam yusibi buuhi imaam shaafici libaaxu muxuu libax ku noqday kayntiisuu libax ku yahay muslimku wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu ka shaqeeya shaqada diinta hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin cidda kalena ay daahirinayaan ummaddan socodkay qiimo ku leedahay walaalayaal fa insha allah niyooda inaad socotaan ziyaarta dadka socda nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam khayru man daba calaa wajhi alardi waa ina cabdillaahi weeyaan ma ka fadli badan tahay adigu wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu aطacaam wayamshi fi laswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuna macahu nadiira waa maxay kan suuqa wareegaya nebiga lagu yidhi u wareegay halkay joogaan buu dadka nebigu ugu tegey dadku waa laba weeyaan muqbiliin iyo mudbiriin dad khayrka jecel iyo dad khayrka aan jeclayn iyo maa badan 90% ma soo galeen masaajidda dacwadda waa maxay dacwadda masaajidka laga jeedinayana waa dacwatu raaqibiin baa la yidhaha dacwadda dibadda la tegayna waa dacwatu hayr araaqibiin baa la yidhaha labadana waa loo baahan yahay barkadda biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan way dhoofayaan mid baa dhiman mid baa noqon mid baa xanuunsan mid baa waalan masaajidka xidluu ka soo bixi marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidha culammadii masaajidda marka jamacaadku wax kale lama socdaan wax jadiida ma wadaan mujtamacan iyo waxaa isku xidhayaan iyo culammada masaajidda